asalaamu calaykum soo dhowaada saaxiibadeena youtube muuqaalkeennan waxaan kusoo qaadanaynaa shakhsi samafalo ah oo ku jira safar balse la kulmay arrin cajiib ah bal aynu wada daawanno. hala daaro nalalka cascas ee taraafikada. sidoo kale hala soo qaado caagaga cascas hana la dhigo dhabbada dhexdeeda. dhalinyaro soo jiida boorka. gaadhigana ha laga kaxeeyo waddada. boodhkana ha la daaro. muraayadaha baabuurta ha la dallaco. sidoo kale daaha ha laga qaado boodhka. soo dhowaada dhegaystayaal. abu khaliil waan ognahay inaad qabatay waxyaalo aad u fara badan, haddana waadna maqlaysaa. waxaad tahay halyeygeena, waadna u qalantaa in sidan laguu sharfo. haddana waxaad ku sugan tahay traffic light jam, balse waxaan ku guddoonsiinaynaa hadiyad aad u qaali ah. ilaahay ha u dambi dhaafo. waxaa lagu tiriyaa injineerada ugu shaqada wanaagsan ee Bahrain. waa qof insaan ah oo wanaagsan. waxaan ula jeedaa aabbahay waa shakhsi wanaajiya dadka ay wada shaqayntu ka dhaxayso. waa shakhsi dadka caawiya. keliya waxaan ku qeexi karaa inuu yahay deeq. ku dhowaad 10 sano ka hor waxaanu fadhinay gurigayaga kadib aabbahay ayaa dhintay. xuquuqdayda iyo xuquuqda dadka kaleba waxa uu sameeyey urur. markii ugu horeysay ee ururka la furay waxa uu hubiyey in ay ka kooban yihiin dhammaan gobollada Bahrain.
muuqaalkeenana waxaan ka baranaynaa inaad wax walba oo aad qabanaysid aad dar ilaahay aad u qabatid, aadna caawisid agoomaha iyo dadka kaa hooseeya insha allah. waa inoo iyo muuqaalkanin muuqaalka xiga.